waxaana wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Kulmiye Show. kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta dunida oo aynu daaha kaga rogi doono wararkii ugu dambeeyay maraakiibta dagaalka Mareykanka oo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay biyaha Taiwan, cabsida jirta ee ah inay isku dhacaan Shiinaha iyo Mareykanka. waxaan idin haynaa xog iyo macluumaad ku saabsan arrintan. sidoo kale daawadayaal, barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dowladda Shiinaha ciidankeeda oo bilaabay iyaguna dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku wajahan dhanka Taiwan. suuragal miyaa xilligan in Shiinaha uu weeraro Taiwan? barnaamijka ayaynu ku falanqeynaynaa mar kale soo dhawaada. haddaad nagu cusub tahay daawade oo aad ku cusub tahay channelka Kulmiye Show, nagu soo biir oo channelka subscribe inoo saar, mahadsanid. daandaansiga Mareykanka ee ka dhanka ah Shiinaha ayaa u dhaqaaqay meel sare xitaa iyadoo dagaalka Ukraine uu kiciyay Washington oo uu ku faafayo cawaaqib xun oo ku wajahan dhaqaalaha Yurub oo gariirinayo dhaqaalaha guud ee dunida. markabka dagaalka ee diyaaradaha qaada ee Mareykanka Ronald Reagan oo uu weheliyo koox uu hogaaminayo markabka dagaalka Mareykanka ee wax burburiya iyo maraakiibta quusta ee nuclearka ku shaqeeya ayaa ku wajahan xeebaha Shiinaha oo ku dhow marinka Taiwan. bandhigan gardarada ah ee Mareykanka ayaa waxaa loogu talagalay turjumaya cabsida laga qabo isku dhac military oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo ka dhaca Taiwan, taas oo si ballaaran looga dareemayo suuqyada Yurub oo markii horeba la halgamaya dhibaatada ka yimid dagaalka Ukraine. Pan European Stock 600 ayaa hoos u dhacay 0.2 boqolkiiba maalin kadib markii ay korodhay walwalka ku saabsan dhaqaalaha caalamiga ah kadib niyadjabka ee ka imaanayay dagaal dhexmara Mareykanka iyo Shiinaha. hoos u dhacni waxa uu sawir guud ka bixinayaa haddii aysan dhicin isku dhac military oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, dhibaatooyinka horta leh ee soo wajahaya suuqyada ee reer galbeedka iyo Yurub. suuqyada caalamka ayaa markii horeba jahwareersanaa iyadoo kaydka Mareykanka uu la halgamayo dhibaatooyin ballaaran. hadhihin kama aysan digin. waxa ay ahayd 29 Juulaay markii ciwaankan uu qoray wargeyska Global Times ee Shiinaha. waxa ay ahayd digniintii ugu horeysay ee ugu adkeyd ee Shiinaha uu diro inta uusan qaadin tallaabooyin military. jawaabta Shiinaha waxay noqon doontaa kuwa nidaamsan oo aan ku xadidnayn cabir yar marka la eego badnaanta ficilada Pelosi iyo dhaawaca kalsoonida siyaasadeed ee xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, ayuu yiri Yan Mungish oo ah madaxa Akademiyadda Cilmiga Bulshada ee Shiinaha ee daraasaadka Taiwan. waxa uu sheegay in jawaabta Shiinaha ay ka mid noqon karto ikhtiyaaro military iyo sidoo kale tallaabooyinka hortaga laga soo bilaabo dhaqaalaha ilaa diblomaasiyadda oo uu adeegsado yaa gardaran Shiinaha iyo Mareykanka. Shiinaha waxa ay si joogto ah oo fiican u fahamtay mowqifkeeda adeegsiga madax bannaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed oo kalena Taiwan. Washington waxay si cad u jebisay heshiiskii caalamiga ahaa ee ay la saxiixatay Shiinaha 50 sano ka hor bishii Febraayo 28 1972 oo u dhexeeyay Ridge Nixon, kaas oo lagu magacaabo warmurtiyeedka wadajirka ah ee Shanghai. xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka William iyo la taliyaha gaarka ahaa ee Mareykanka Henry ayaa ka qayb galay diyaarinta dukumentigani. waqtigaasi Mareykanka ayaa go'aansaday in Aasiya ay tahay xeradiisa dhammaan marka laga reebo Vietnam ayaa laga adkaaday. tani waxa ay ahayd dhiirigelinta xiriirka Mareykanka ee gobolka kadib 20 sano oo dadaal ah oo Mareykanka uu ku guuldareystay inuu afgambiyo gacaankii Shiinaha iyadoo loo marayo cunaqabateyn adag iyo sidoo kale carqaladeyn military. Mareykanka waxa uu si aad uga walaacsanaa in uu u kaxeeyo Shiinaha xeryaha midowga Soviet, sababtaasi oo miiska keentay in Mareykanka uu saxiixo in Taiwan uusan u aqoonsanayn dowlad madax bannaan. hadda 50 sano kadib, awoodda imbraadoriyadda Mareykanka ayaa sii yaraanaysa. Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo dalalka kale ee gobolka ayaa si isa soo taraysa u midaysan oo awood u leh inay iscaawiyaan marka ay la kulmaan caqabadaha military ee imbraadoriyadda Mareykanka iyo sidoo kale heerarka cusub ee cunaqabateynta dhaqaalaha. Mareykanka waxa uu leeyahay haddii aanu ku cunayn cidna kuma cuni doonto. Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha ayaa 1972 si ay u wanaajiso xiriirka Mareykanka waxa ay ballan qaaday in la saxiixo faragelin la'aan arrimaheeda gudaha iyo ixtiraam madax bannaanideeda ee dhuleed. dhammaan sida ay dhigayaan heshiisyada iyo axdiyada Mareykanka waxa uu jabiyay ballanqaadyadan iyadoo loo marayo faragelinta ee Hong Kong, Tibet, Xinjiang iyo sidoo kale Taiwan iyo maalgelinta kale iyadoo loo marayo gargaarka Mareykanka ugu talagalay dhaqdhaqaaqyada ka soo horjeeda ee Shiinaha. gundhiga ugu weyn ee xiisadda ayaa ah warmurtiyeedka 1972 oo Mareykanka uu ka booday. haddaba maxay tahay cabsida gaarka ah ee Mareykanka uu ka qabo dhaqaalaha Shiinaha? dhaqaalaha Shiinaha waxa uu hadda ka sareeyaa
kan hanti wadaagga ah ee Mareykanka. Sidaa daraaddeed, dadaalka lagu carqaladeynayo Shiinaha ayaa noqday mudnaanta koowaad ee Mareykanka. Taiwan, oo ay ku nool yihiin 23 milyan oo dad ah, waxay noqotay xarunta ugu caansan ee halganka lagu carqaladeynayo siyaasadaha Shiinaha ee dhaqaalaha. Magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dhulweynaha Shiinaha ayaa leh dad badan oo ka soo jeeda jasiiradda Taiwan. Istiraatiijiyadda Washington waa ganacsiga ugu weyn ee Taiwan, waana xarunta wax soo saarka ugu muhiimsan ee loogu talagalay chips-ka. Si gaar ah, Mareykanka wuxuu uga walaacsan yahay qalabkooda korontada, gaadiidka, laptop-yada, telefoonada iyo teknoolojiyadda kale ee Shiinaha. Maxay tahay siyaasadda Shiinaha ee hal Shiina? Jasiiradda Taiwan waxa ay si rasmi ah uga mid ahaan jirtay gobol ka mid ah Shiinaha tan iyo 1683 intii lagu jiray boqortooyada ee Shiinaha. Kadib dagaalkii sokeeye ee Shiinaha ee 1949, xisbiga wadaniga Shiinaha oo taageero ka helaya Mareykanka ayaa goostay Taiwan. Dhanka kale, xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ee guuleystay ayaa markaasi dhidibada u aasaasay Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha. Xisbiga wadaniga ee Shiinaha ayaa dhankooda aasaasay waxa ay ugu yeereen Jamhuuriyadda Shiinaha, iyaga oo ku andacoonaya inay tahay dowladda Shiinaha oo dhan. Maantana xitaa dastuurka Taiwan ayaa sheegaya in Taiwan ay tahay gobol ka tirsan Shiinaha. Inta badan dunida oo dhan oo ay weheliso qaramada midoobay ayaa si rasmi ah u ogolaadeen in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulweynaha Shiinaha. Mareykanka waxay u rogtay dariiq, waxaana ay raadinayaan iyadoo loo marayo dhibaatooyin siyaasadeed iyo mid militari. Dhawaaqay siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Aasiya oo looga dan leeyahay in lagu yareeyo oo lagu xakameeyo Shiinaha. Xilligii Trump, mowqifka rasmiga ah waxa uu ahaa militariga inay tahay mudnaanta koowaad ee qorshaha Mareykanka. Cadaawadda militari waxa ay gaartay heerkii ugu dambeysay dagaalka ganacsiga. Madaxweynaha Mareykanka ee hadda Biden wuxuu qaaday xitaa in ka badan intaasi, isaga oo ka iibiyey hub badan. Labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka ee dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale jamhuuriga marka la joogo Koongareeska waxay isku dayaan in midba midka kale uu ka sarreeyo soo jeedinta tallaabooyinka ka dhanka ah Shiinaha. oo ku tartamaya joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Taiwan ayaa laba laabantay bishii December ee la soo dhaafay. Ciidanka Mareykanka iyo qandaraaslayaasha hubka waxa ay sheegeen in Taiwan ay dalbatay diyaarado ballaaran oo ay ku jiraan kuwa aan duuliye lahayn, gantaalada lidka diyaaradaha Stinger iyo gantaalada lidka taangiyada ee Javelin iyo nidaamka gantaalada ee lahago ee M142. Hubkani oo dhammaantood ah hubkii Mareykanka uu siiyay Ukraine, waxaana intaasi dheer in Mareykanka ay ku dhawaaqday in hub ku kacaya $180 milyan ay siinayso Taiwan. Waana shixnadii shanaad ee maamulka Biden, kii afraad ee la ansixiyay sanadkan waxa ay ku kacday $95 milyan bishii Abriil iyo $100 milyan oo Mareykanka uu sheegay in uu ku cusboonaysiinayo gantaalada Patriotic ah bishii Febraayo. Tani waxa ay lama huraan ka dhigtay in Shiinuhu uu u arko in Mareykanka Taiwan uu ka dhigayo boondada uu hubka ku qulqulinayo iyo sidoo kale gardarro oo bedelaysa goobta dagaalka ee Ukraine. Washington ayaa sanado badan adeegsanaysay istiraatiijiyad la mid ah midda Taiwan una adeegsanaysay dagaalka Ukraine si ay u noqdaan madal ka dhana Ruushka. Haddaba waa maxay dagaalka degdega ah ee Mareykanka ee aan dhamaadka lahayn? Dagaalada Mareykanka ee Aasiya ayaa galaaftay nolosha malaayiin qof iyaga oo burburiyay deegaano dhan. Yaaba iloobi kara burburka ka dhashay dagaalada Mareykanka ee Kuuriyada, Vietnam, Afghanistan, Iraq iyo Suuriya, iyo sidoo kale malaayiin qof oo ku barakacay oo midba midka kale uu ku dhamaaday guuldarro. Siyaasadda Mareykanka waxay furteen $1 trillion oo faa'iido u ah warshadaha military. Qatarta dhabta ah ee dagaalka cusub ayaa kor u kacaya marka dhibaatada hanti wadaagga ay kororto. Mareykanka waxay mar kale dooran doontaa dagaalka Mareykanka ee Ukraine muusan horseedin burburka la saadaaliyay dhaqaalaha Ruushka, balse wuxuu carqaladeeyay silsiladda saadka tamarta iyo cunnada caalamiga ah. Waana sababta ugu weyn ee hoos u dhaca hadda jira dhaqaalaha dunida. Iska horimaadka military ee Shiinaha ayaa noqon doona mid ka sii ballaaran oo xitaa ay yar tahay in lagu guuleysto. Daawade, adigu maxay kula tahay aragtidaada? Fadlan kommentiga inoogu reeb. Barnaamijkeena xogta dunida oo idinkaga imaanaya Kulmiye Show wanaga intaas. Daawade, haddii aad inta nala soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka noo like gareyso, sidoo kalena nagu soo biir mahadsanid. barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.